sanaadaan uma qaylinayaan maxay uga qaylin waayeen qowmuluudnimada maxaa kuwan liwaadka lagu soo qabtay maxkamadaha la hor keenayo ee babliga loo sheegaya ay uga hadli waayeen limaada ninku miyaanu xaq lahayn isagu dumarkuunbaa xuquuq leh waa fasaad bulshadeenna in badan oo ka midina ay u rixinayso amaba ay u dhega nugushahayba waxay nagu soo kordhaya dadka dibadaha ka imanaya faraha badan le qaar badan oo ka mid ihi afkaar bay xambaarsan yihiin aan la mahadin doonin cidhibteeda iyo caaqibadeeda aan la mahadin doonin ayay xambaarsan yihiin haddaan laga digin oo dadka aan dhawaaq dheer loogu sheegin oo dowlad iyo shicibba aan laga kicin fadhigana guryaheenna ayuu daadku inoogu soo geli doonaa guryaheenna waxay sheegtay inan ka mida shaqo qaranta qablihii shaqo qaran ee waxa weeye ka soo baxay jaamacadaha oo maxkamadaha dadka ka shaqeeya ahay waxay ii sheegtay inay markaa la keeno maxkamadaha la keeno maxkamadaheena la keeno gaar ahaan Hargeysa rag le afar nin oo isqaba nin le afartan ba anaa qaba sidii naagihii afartan ba anaa qaba xaasas qowmuluud ah wax ka hadlaya iyo wax ka qeylaya midna ma jiro waxaa laga yaabaa garsooraha la hor keenaa inuu idhaahdo xukuna qodob aan ku xukumaba ma hayo war qodobkiisu waa dil uqtulu alfaacila walmafcuul ka lagu sameeyey iyo ka sameeyey labadaba waa la dilaya culamada islaamku waxay dhaha weliba dilka ugu fool xun dil ayaa la dilaya fuqahada qaar waxay fatwoodaan culamada qaarkood fuqahadu buurta buur ugu dheer inta la saaro in laga soo tuurayo sida tiyuubka si ay hawada ugu soo qarxaan oo isagoo xataa hilibkiisa dhulka laga ururinayo xataa dil caadi oo raaxa leh aan la dilay qowmuluud maxaa lagu haligay sida loo halaagay cid loo halaagay ma jirto dhulkaa lala jaray siday u dhammaayeen samaa dunyaha lagu dhaweeyey markaasaa la soo fororiyey fajacalnaa caaliyaha saafilaha baa ilahi subxaana wa tacaala waxaanu ka yeelnay qaybteedii sane hoostaanu marinay xaggeedii hoosena hoos dusha ayaanu soo marinay malaku jibriil calayhi salaam ayaa garab garbihiisa ka mida geliyey dhulka dabeedna intay ku fadhiyeenba waa la fujiyey ilaa samaa dunyaha malaa'igtii joogtay dhawaaqa diigga iyo codka diigga ay maqlayeen waa la soo fororiyey dabeedna dhulka ayaa ka daba yimid xabaal kale looma doonin waa qowmu luuta maxaa yeelay waxay sameeyeen faaxisha sida nebi luud uu ku wacdiyey maa sabaqakum biha min axadin min alcaalamiin cid alla cid idinka horraysay waxaanay jirin baad la timaadeen buuri inakum lata'tuuna rijaala shahwa min duuni nisa ma rag baa wax weydiinaysaan dumar sakadii ya markay faaxishadu halkaa gaadho zina waa laga yaabaa ruuxa in la yidhaahdo war hanaa u geysay shaydaan baa ku duubsaday gabadha iyo ninkaas ku duubsaday war bal nin u tegaya oo weliba ku faanayo ummadda hortoodii oo le anaa qaba bal ka warrama billahi calaykum berrina naagnaa qabta ka eg dabeedna waxay noqonaysaa silsiladaa socota qaar baa laga yaabaa marka inay la soo boodaan dunida gaalada qaar baaba sharcigooda ku jirtaa kuwaa maxaa loo halaagi waaye inta inaga layna halaagayo ruuxa ilaahay islaamnimo iyo iimaan uu siiyo haddii islaamnimada iyo nicmadii alla uu siiye uu ka kufriyo uu ka cadaab xun yahay ka gaalka asliga ah sida ninka ridoobaya xukunkiisu dil u yahay isla marka la qabto gaalka isagoo gaal baa tahay halkaa isagoo iska taagan loo dili maayo sabab kale oo la yimaado mooyaane laakiin murtadka murtadnimaa loo dilaya waad ridowda keliya baa ugu filan dil man badala diinahu faqtuluuh buu nabigu yidhi ninka diintiisa bedela dila kuwa garsoorayaashaana waxaan leeyahay haddaydaan qodob u haynin ilaahay baa idiin sheegay qodobkaad ku xukumaysaan man badala diinahu faqtuluuh murtadka diintiisa bedela dila ninka qowmuluudkaa faacilka sameeyey iyo ka lagu sameeyey labadabana waa la dilaya ma qaar qodob loo daydaya kuwan oo kale shareecada bayaan bay ku yihiin bayaan haddii kale garsooraha ka meermeeraya iyo wadaadka ka aamusan iyo ganacsadaha daawanaya intaa midna badbaadi maayo abadan waayo haddii ilahay ciqaabkiisa uu keeno kii dulmiga sameeyey iyo kii aan samaynba wada camimaya wattaquu fitna laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa war iska ilaaliya fitno iyo dulmi aan ciqaabkiisu ku dhici doonin keliya kii sameeyey ba ilahi yihi subxaana wa tacaala nabiguna wuxuu uhi alayh salaatu wasalaam wanaagga waydin isfari xumahana waydin iska reebi ama ilaahay ciqaabkiisuu keeni doonaa markaasaa rabbi baryi doontaan
markaasaa laydinka aqbali waayi doonaa maanta corona jira abaaraa jira maciishad barar baa jira dhib badan baa jirta miyi iyo magaalaba macsiyadana keentay haddaynu waxaa aynu sheegaynay ka sii xun kabaa'irta waaweyn kabaa'ir dunuub iyo gaalnimo haddaynu ku darsano diintii ka baxayaan dhallinyaradeenni waxaynu sugnaa waa ciqaab walaalayaal ilaahay waa facaal limaa yuriid waxaynu maqli jirnay dowlad heblaaye waxay samaysatay gantaal qaaradaha ka gudba war ilaahay wuxuu soo diray bacterian cidiba arkayn oo 5 qaaradood ee dunida 6 qaaradood ee dunida isaga gudubtay oo nin inuu ku soo socdo iyo inuu hayo iyo inuu u soo jiro midnaba aan garanay ku weyn iyo ku yar hadda waa tag of virus makhluuqaadka alle ku ugu daciifsanaa ayaynu iska celin karlaan waa ku ugu daciifsanaa ya haddii ilaahay ciqaabka waaweyn ugu salida balka waran ya tarab baa loogu dhimanaya dunida tarab waa cibra markaas ayadoo halkaynu ilaahay uga noqon lahayn inuu rabbi bari lahayn ee